السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ kulankan kasoo sheegi doonaa casharada imtixaanaha ahay mid ka mid ah casharkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaan rabnaa inaan maaragtay install kusoo sameyno oo add roles and features kaga soo darno VPN oo ah virtual private network haddii la yiraahdo wuxuuna dabcan aad ugu wanaagsan yahay qaybta maaragtay dabcan security ahaan oo communicationka lagu sameynayo VPN-ka waa dabcan secure inta badan iyadoo maaragtay dabcan uu ku fiican yahay dabcan data secure ah ayuu gudbinayaa taas ayuu aad ugu muhiim maaragtay ugu fiican yahay sida man middle attack qaybtaas kaleeto markii attack lagu soo sameeyo hadduu isku dayo in attack lagu sameeyo secure ayuu ka yahay marka waxaan bilaabeynaa sida maaragtay aan ugu soo dari lahayn marka waxaan kusoo daraynaa qaybtaas hadii la yiraahdo halkaan aad right-keeda ku leedahay meelo badanaa looga dari karaa marka add roles and features ayaad keli ku leedahay waad akrinaysaa meelana waa maaragtay dabcan waa muhiim inaad akhriso haddii aad first time sameynaysid next ayaad leedahay waa muhiim inay kuu dooran tahay qaybtan sidaad ku dhaafaysaa next ayaad leedahay halkan waa muhiim halkan waa muhiim inay select kuu tahay haddii aad serifaro badan isticmaalayso kanaad doonayso inaad maaragtay aad ku darto qaybtaas waa inaad kasii maaragtay aad ka doorataa laakiin hadda sidaad dareemaysaan waa maaragtay qaybtaa keliya next ayaad leedahay halkan baad imaanaysaa marka waxaan dooranaynaa remote access ayaan dooranaynaa halkan waa muhiim inaad maaragtay dabcan akhriso oo aad maaragtay dabcan iska akhriso waa muhiim ood ogaato wax maaragtay qaybtaanu qabanayso kadib waxaad leedahay next qaybtan waxaad dabcan next ayaasi leenahay halkan waxa weeyaan waa next qaybta waxaan ku darsanaynaa waa direct access and VPN ayaan ka dooranaynaa add features aan leenahay next ayaan leenahay waa muhiim inaad iska akhrisaa okay next ayaan leenahay okay qaybtan next ayaad leedahay waxaad leedahay install dabcan marka hadda waa maaragtay ku dhamaaday sidakii marka waan iska xiraynaa halkan isla mar ahaantaana qaybta ka dhiman ayaan maaragtay sameynaynaa halkan ayaad imaanaysaa halkan markaad imaato keligaad ku siinaysaa si aan u dhamaystirno marka configuration qaybta ka hartay waxaad keli ku siinaysaa open the getting started with it kaasaad keli ku siinaysaa waa sugaynaa okay qaybtan marka waxaan ka dooranaynaa qaybtan deploy VPN only ayaad keli ku siinaysaa okay halkan waxaad dareemaysaan in maaragtay halkan gaduud ama casaan aba sidaad u taqaanaan uu saaran yahay halkan marka ayaad u imaanaysaa waxaad ku leedahay
right click right click markaad tidhaahdo waxaad tegaysaa qaybtaan aad click leedahay configure and enable remote waxaad dul imaanaysaa qaybtaan configure and enable routing and remote access ayaad click ku siinaysaa kadib next ayaad leedahay okay qaybtaan aan ka dooranaynaa custom configuration next ayaan leenahay halkan waxaan ka dooranaynaa VPN access aan ka dooranaynaa next ayaan leenahay okay qaybtaan finish aan leenahay kadibna star service aan leenahay ayaa click leenahay okay waad dareemaysaan halkan casaankii ama gaduudkii waa maaragtay hadda waa okay marka isla meeshaasood maaragtay raad kale ku leedahay property ayaan leenahay property markaad tidhaahdo IP version 4 ayaad tegaysaa halkan static IP address pool ayaa loo gelin karaa oo maaragta aad isticmaali kartaa oo click ku tidhaahdo aad ku leedahay kadibna IP addresska ayaad maaragtay ku habeynaysaa hadda laakiin waxaan u daynaynaa si aan casharkeena usii wadano haddii laha yidhaahdo dynamic host configuration protocol ayaan u daynaynaa haddii laha yidhaahdo marka waxaad leedahay apply okay ayaad leedahay okay marka casharkeenu maanta wuxuu noogu eegyahay halkaas haddii laha yidhaahdo waxaan soo geli doonaa maaragtay dabcan freshii qaybta kaleeto waxaan ka dhigi doonaa haddii laha yidhaahdo part 2 ayaan ka dhigi doonaa ama qaybta labaad aan ka dhigi doonaa haddii laha yidhaahdo marka tan iyo casharadeena xiga intaan kulmayno waa mar kale iyo lowda koonillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu